waxaynu tilmaamaynaa in insha allahu tacaala dul maraynaa 5 arrimood oo aan isleeyahay waxay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan ee qofka muslimka ku caawinaya camalka saalixa ilaahay daraadii uu bilaabay. in badan baa dadka muslimiinta ah in badan oo ka mid khayrka ay jecel yihiin, waxaana laga yaabaa inay khayrkii bilaabaanba, laakiin mushkiladdu waxa weeye joogtaynta khayrka. ilaa waxaa la inaga rabaa waa khayrka inaynu joogtayno, wa inama alacmaalu bilkhawaatiim suuri nabigu calayhi salaatu wasalaam, oo geeridu ay noo timaado inagoo camal wanaagsan faraha ku hayna, inagoo camal wanaagsan qabanayno ka shaqaynayna. sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. geeridu yaanay idiin imanin idinkoo ilahay u hoggaansan mooyaane, mustaslimiin munqaadiina lilah. taasina maxay ku imanaysaa in qofka muslimka ahi camalka wanaagsan uu joogteeyo. in la bilaabo waxaa ka adag oo ka muhiimsan in camalka wanaagsan la joogteeyo. haddii qof kastoo muslim oo camal wanaagsan bilaabo uu joogtayn lahaa, lacama alkhayru calaa arjaa'i alard, khayrku wuxuu camiri lahaa jihooyinka dhulka, qaaradahoo dhan khayr baa camiri lahaa. ayuha almuslimuuna cibaad allah, su-aasha ay tahay qof kasta oo muslima oo jecel adduunyadan inuu ka sahay qaato, khayr iyo wanaagna uu ku dadaalo iyo wax anfaca maalinta ilaahay la horgeyn doono, ee wuxuu arkayaa uu noqon doono 2 shay oo qura. shay hareeraha ka xiga oo camalkiisiiya, iyo shay ka soo horjeeda oo naara. ilaahay baynu naar ka magan gelaynaaye. qofka muslimkaa waa inuu isweydiiyo ma aladii yuciinunii wa yusaacidunii cala almudaawamati wاlistimraari calaa maa bada'tu bihi min camali saalix. maxaa igu caawinaya o igu kaalmaynaya oo ii suurto gelinaya camalka wanaagsan aan bilaabay inaan joogtay, salaada inaan joogteeyo faral iyo sunne, salaatuleyl inaan joogteeyo, soom sunnaa inaan joogteeyo waajib kastoo ilaahay saaray, sunnayaasha inaan joogteeyo gudista jamiica xuquuq illah wa xuquuqa khalqi illah. bani aadam baan ahay oo kolley khalad waa iga dhacaya ee toobadkeenka inaan joogteeyo siduu u joogteeyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaynu tilmaamaynaa inu insha allahu tacaala dul maraynaa 5 arrimood nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaynu tilmaamaynaa inu insha allahu tacaala dul maraynaa 5 arrimood oo aan isleeyahay waxay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan ee qofka muslimka ku caawinaya camalka saalixa ilaahay daraadii uu bilaabay inuu joogteeyo. arrinka koobaad waaba ikhlaaska, inuu camalkaagu marka hore ilaahay daraadii u noqdo, an yakuuna camaluka khaalisa lilahi subxana wa tacaala. mar kastoo ikhlaaskaaga iyo niyad samidaadu ay xoogaysato, tawfiiqda ilahay baad helaysa. wa min tawfiiq illahi subxana wa tacaala lilcabd an yuwafiqahu wayuciinahu calaa ficli اlkhayri dawman. ilaahay waafajintiisa waxaa ka mid a addoonka uu waafajiyo inuu ilaahay ku caawiyo ugu kaalmeeyo samaynta khayrka si joogtaa u sameeyo xataa yalqaa rabbahu subxana wa tacaala, ilaa geeridu ay u imanayso ilaahay subxana wa tacaala uu kala kulmaayo. arrinka labaad, ikhlaasku wax sahlan maaha, waa arrin u baahan fiiro dheeraada, dadaal joogto ah, waa arrin u baahan kormeer iyo ka warhayn aan kala go' lahayn. waa arrin u baahan nafta in lagula jihaado, waayo camalkan saalixa ah naftu indheer garad maaha, waa indhow garad. inta badan waxa ay dheeftiisa aragto ama isle si deg deg aad u helaysaa bay ku dadaashaa, laakiin camalka saalixa ah dheeftiisa u weyni meel kaloo inaga qarsoon oo hadda aynaan gaadhin bay ka dhacaysaa. markaa qof ilaahay siiyey quwat liimaan wa quwatu tacaluqi اlqalbi biاllah ayuunbaa ikhlaaska ku dadaali kara. arrinka labaad, mujaahadaة الnafsi calى ficli اlkhayr. naftu waa sida geedka yar ee soo baxaya hadda, haddii la iska daayo dhinacu doonaabuu u baxayaa,
haddii la toostoosiyo la dhisana si toosan buu ubaxaya. waa sida ilmaha yare naaska jaqaya, haddii loo daayana waa iska wadaya isagoo weyn. hooyo soo fadhiisaan ku jaqay inu yidhaha laga yaaba, haddii laga gooyana waa ka go-aya. naftu waa sidaasi oo kale. hadduu qofku hogaanka usii daayo meel xun bay maraysaa. ina nafsa la amaarat bisuu, sidaasaa nafuha ay u badan yihiin inay dadka wanaagga ka fadhiisiiyaan, xumaantana amraan oo ay ku riixaan. qof aan naftiisa la jihaadin oo isagoo aan hogaanka u qaban oo aan la dadaalin oo iyada aan jihaadka dhabtaa la gelini, arrimaha aynu sheegayna gaadhi maayo. naftaada markaad la jihaado, ilaahay wuxuu subxaana watacaala kugu caawinayaa camal wanaagsan ood bilowday inaad joogtayso. albaabada khayrka ayaa kuu furmaaya. qaala allahu tacala waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin. kuwa nafahooda ilaahay daraaddii ula jihaaday, ilahay wuxuu le waxaanu ku hanuunina wadooyinka khayrka, waxaana marka dambe ay gaadhayaan darajat lixsaan oo maraatibta diinta martabada u saraysa ah. an tacbud allaha kaanaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraak. inaad ilaahay ku caabuddo maqaamu lmushaahada, saad aragtidoo kale. haddaad taa hoos uga dhacdana maqaamu lmuraaqaba, adoo mar walba xusuusan ilaahay inuu ku arkayo, ku og yahay xaalkaaga ilaahay inuu la socdo, marnaba aanad ka qarsoonahayn. wa ina allaha lamaca almuxsiniin. taana maxay noqonaysaa natiijadeedu marka darajat lixsaan gaadho? an yakuuna allahu macaka fi kuli makaani wa zamaani wa calaa kuli xaal. inaad noqoto qof ilaahay mar walba uu la jiro, iyo meel wal iyo xaalad kasta oo ku jiraba. arrinta saddexaad, in kastoo aad dadaasho, bani aadam daciif oo taag daran baa tahay. laa xawla laka walaa quwata ila billah. awood aad xaal ku bedasho mid kale aada ugu guurto iyo xeelata aad ku samayso midnaba ma lihid. isku filaansho qof bani aadam oo gaadhay ma jiro oo ilaahay ka maarma. yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraau ilى اllah wallahu huwa اlganiy اlxamiid. dadow idinka ayaa ah kuwa ilaahay u baahan si joogto ah. ilaahay baa kaan cidnaba u baahanin, cid waliba ay u baahan tahay. waxaad arrintaa ku gaadhaysaa inaad ilaahay subxaana watacaala si joogtaa kaalmo u weydiisato ood ilaahay tala saarato. waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh. ilahay inaad cuskato. wax kastoo wanaagsan markaad doonaysa inaad bilowdo, an takuuna fii qalbika hiqat kabiiraة biاllah. inaad ilaahay subxaana watacaala si weyn oo dhammaystiran aada ugu kalsoon tahay, adigoo mar walba asbaabtana sharcigaan aan ka tegahayn. inaad ilaahay subxaana watacaala camal kastoo aada samaynaysa faral iyo sunne aada kaalmo u weydiisato, oo marnaba xusuusnaanta ilaahay iyo qiritaanka awoodiisa iyo taagdaradaadu qalbigaaga aanay ka faaruqin. kama qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah. wixii waxtarkuula ku dadaal, awoodaadana ha isku hadlayna ilaahay kaalmayso. wacallama الnabiyu mucaada bacdama akhbarahu anahu yuxibuhu fi اllah an yaquula dubura kuli salaa allahuma acinii calى dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika. mucaad ibnu jabal rasuulku wuxuu ku uhi ilaahay daraaddii baan kuu jecelay, taa awgeed tala qiimo badan baan ku siinaya. salaad kasta dabadeed waxaad tidhaahdaa ilaahay ow xuskaaga igu kaalme. dikru huwa diinu kulu, waa diintao dhan baa dikriya. alacmaalu saalixa kulaha waa dikr. ilaahw mahadnaqa nicamkaaga aan ka mahadnaqo igu kaalme. ilaah waxaad igu kaalmaysaa si fiican inaan kuu caabudo. xusnu lcibaada waa cibaadat llahi subxaana watacaala bilixsaan. waa inaad ilaahay ixsaan ku caabuddo oo macnihiisa hore aynu u sheegnay. arrinka shanaad waa mujaalasatu ahli اlkhayr wاlcibaada. addoomaha ilaahay isku mid maaha. qaar ilaahay bay ku ilowsiinayaan haddaad la fadhiistada hadalkooda dhegaysato, haddaad u fiirsato dhaqankooda iyo ficilkooda eegto. qaarna markaad sidaa u eegto ayaad ilaahay xusuusanaysaa. nebi maxamed baa calayhi الsalaatu wasalaam taa sheegay, faqaal axabu اlcibaadi aw afضal اlcibaad man idaa ru'uu dukira allah. addoomaha waxaa u fadli badan kuwa marka iyaga la arkay ilaahay la xusuusto. wuxuu ku sheegay dahabi raximah اllahu tacala fi sir aclaami nubala
في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل marka la arko in ilaahay la xusuusan jiray adoonka qalbigiisu ilaahay ku xidhan yahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala xusaya ee yuraaqibu allah ee hamigiisu hamul aakhira u yahay marka la arko ilaahay baa lagu xusuusanaya daarul aakhira lagu xusuusanaya dadka qaarkood mawjadaha adduunyun bay ku dhex gelinayaan walaa yudakiruunaka billah ilaahay kuma xusuusinayaan qaarkoodna ilaahay bay subxana wa tacaala ku xusuusinayaan واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نبي محمد بن الله سيدا كوير waxaad naftaada ku sabir siisaa la jooga adoomaha ilaahay ee ilaahay caabudaya ilaahay waxidaya kaliyeynaya ilaahay xusaya baryaya gelin hor iyo gelin dababa walaa tacdu caynaka canhum ilaahay dad adduunyo ahayn oo adduunyo aanay haysan awgeed ama manaasib indhahagu yaanay ka lalin oo ahlu dunyaa indhahagu yaanay u lalin wallahi kuwa la joogooda ayaad ku intifaacaysa fi dunya walaakhira oo iimaankaagu ku ziyaadaya ahlu dunyaha indhaha aad u lalinayso ila kulankooda aad ku farxaysana waxaa laga yaabaa inaad ku khasaarto jaliisu saalix saaxiibka wanaagsan ee la fadhiistaha wanaagsan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay mar walba la joogiisa iyo la fadhiisadkiisa in lagu intifaacayo arrinka lixaad wa tadkiiru nafsi bilmowt waa inaad si joogtaa naftaada geerida u xusuusiso qofba qofka uu geerida uga xusuusnaan badan yahay buu ka caqli badan yahay oo aakhiro uga diyaar garoobi og yahay oo adduunyada uga zuhdi badan yahay waa ka yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey man akyasu nnaas dadka yaa u caqli badan qaala akharuhum dikra lilmowt wa ashadduhum isticdaada lahu ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira rawahu ibnu maaja biisnaadin saxiix dadka waxa u caqli badan kuwa geerida ugu xusuusnaanta badan uguna diyaar garoobi og kuwaasaa kuwa indheer garadka ah sharafta adduunyo waxaa sharaf iyo karaamo ah waxaad ilaahay agtiisa sharaf iyo karaamo kaga yeelanayso ina akramakum cinda allahi atqaakum kuwaasaa dada kale uga dheereeyey karaamada iyo maamuuska ilaahay aakhiro u dhigay waa asnaafu naciim alatii acaddaha allahu fi ljanna kuwaasi ayaa dadka kale uga horeeyey oo uga dheereeyey geerida haddaad xusuusnaato waxay sababaysaa inaad mar walba ku dadaasho usahay qaadashada waxa ka dambeeya wax kastoo aad isleedahay geerida dabadiibuu ku dhibi doonaa inaad si deg deg oo dhaqsaa uga toobad keento walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina amray xusuusnaanta geerida inaynu farabadino akhiruu dikra haadimi ladaat farabadiya ka macmacaanka jara xusuusnaantiisa waxyaabaha geerida lagu xusuusta ee u muhiimsan ee nebi maxamedna inagula taliya waxaa ka mida ziyaarat lmaqaabir xabaalaha inaynu booqano fazuuruuha fainaha tudakiru alaakhira fii riwaayatin tudakiru lmowt qubuuraha booqda aakhiraad ku xusuusanaysaan geerida ayaad ku xusuusanaysaan addoonku waa inuu naftiisa si dhaba u xusuusiyo marka uu dhinto wax adduunyadan yaalloo anfacaya inaanu jirin wuxuu tarayaa camalkii saalix ahaa ee uu sameeyey mooyaane taasina waa inay ku dhaliso inuu dadaalka u badangeliyo siduu aakhiro ugu sahay qaadan laha watazawadu faina khayra zaadi taqwa allahuma ya rabbana اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم وفقنا يا ربنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم اجعلنا للتزود إلى الآخرة إلى لقائك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين الذي أنزلته على رسولك محمد عليه الصلاة والسلام اللهم علم جاهلهم واهد ضالهم يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.